markaabuu nabigu yidhi may cabbaas u sheeg ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la leynaya maaha ku dhammaanta waa maalintii naxariista wamaa arsalna naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما شاء الله إلهي بانكو حمدنا مر والبا نعم فربضان بإلهي دوشنا أودغي نعمت إلهي نسيي نعمد أبويني والهداية وهنونك ويان إن إلهي كو هنونيو oo dariiqa xaqa ilaahay uu ku mariyo oo qof muslima oo quman oo toosan ilaahay uu ka dhigo nicamta adduunka dusheeda inta la joogo ilaahay uu bixiyo waa nicmada ugu weyn weeyaan inay nicmadaasi nicamta ugu weyn tahayna waxaa caddaynaysa salaada markaan tukanayno keena faqiirka keena qaniga keena lab iyo keena dhidig keena madaxa iyo keena mijaha su-aasha keliya ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay ilaahay inuu ku weydiisto waa su-aal waliba ku soo aroortay suuradda faatixada dhexdeeda suuradda faatixaduna waxa weeyaan waa ruknu min arkaani asalaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa laa salaata liman lam yaqra' biummi alqur'aan suuraddaas suuratu lfaatixa qofka aanan akhrisan buu nebigu yihi salaad ma leh oo salaad uma ahaanin salaadaas markaa suuraddaasi iyada magaceega dhan baaba salaaya su-aasha keliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan markaan suuradda aan akhrisanayno waa ihdina asiraata almustaqiim ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyo na mari taasaa markaa caddaynaysa in shayga ugu qiimo badan ee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyey inay tahay alhidaaya hidaayaduna wax kale maahin waxa weeyaan waa hanuun oo ilaahay caza wajalla ayaa mulkiyo oo ilaahay baa haya hanuunkaas qofka ilaahay khayr uu la rabaa ilaahay nuurkaana qalbigiisa uu yeelaa hanuunka ilaahay baa bixiya xataa malaa'igtu ma bixin karto nebiyaduna ma bixin karaan oo nebi haddii uu milkiyey hidaayaduu nebi bixinayo nebi nuux calayhi salaam inankiisa iyo xaaskiisa ayuu siin lahaa nebi ibraahimna aabbihii buu siin lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna adeerkii abaa aalib buu siin lahaa laakiin hidaayaddaasi waa hidaayatu tawfiiq ilaahay baa hayo ilaahay baa mulkiya oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam adeerkii abaa aalib oo nebigeenna soo gacan hayay oo soo koriyey oo kursiinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qeyb weyn ku lahaa markuu bukooday ee xanuunku uu riday ayuu nebigu ziyaarto uu u galay waxa uga sii horreeyay oo la joogay markaa abujahal calayhi lacna deedna markaa buu nebigu dhinac buu ka fadhiisto wuxuu ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama adeer waxaad ii tidhaahdaa hal mar keliya aniga imaqashii oo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamahan aniguna maaragtaane kuu dacwin doonaaye oo ilaahay caza wajalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi lianna nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay
inay ummadaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo deedna nebigu waa kii lahaa shafaacadda ayaan qaatay oo shafaacaddeedu waxay gaadhi doontaa qof allihii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ee islaamnimada soo galay waxaan u helayaa buu nebigu leeyahay qiil aan qiyaamaha ugu dacwin karo taabuu markaa nebigu adeerka abu taalib uu ku lahaa kelmadda aniga hal mar keliya imaqashii maalinka qiyaamahan kuu shafeecad qaadi doonaaye deedna nebigeena sala allahu calayhi wasalam adeerkii waxaa ag fadhiyay abujahl calayhi lacna fircawna haadihi lumma ayaa markaa ku yidhi abaa taalibow ma diintii aabbayaasha aad ka dhaxashay ee milladii cabdulmutalib intood ka leexata maad moxamed maanta warkiisa aad qaadanaysaa deedna markaasuu iska aamusay abu taalib haa iyo maya midna ma odhan deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi kalimatan uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaamah hal mar adeer aniga kelmaddaa i maqashii maalinka qiyaamaha ku shafeecad qaade hadalkii u dambaysay abaa taalib uu ku hadlay wuxuu ahaa inuu yidhaahdo calaa millati cabdilmutalib baan ku dhintay moxamedow aniga iska kaydaa deedna naftiina way ka dhacday labadaa indhood isagoo nebiga ilintu ay ka daadanaysa buu nebigu ka kacay halkaas maxaa yeelay adeerkii u jeclaa nebigu kursiintiisa iyo maaragtaana ilaalintiisa iyo raacayadiisa qayb xoogle ayuu markaa abu taalib uu ka soo qaatay khayrkuu nebigu la jeclaa oo hidaayadda iyo naxariista ayuu la jeclaa laakiin hidaayadda nebi maxamed ma hayo ilaahay baa ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin kaad adigu aad jeclaata ma soo hadaynaysid baa nebiga lagu yidhi waa hidaayadda tawfiiqda waafajinta ilaahay baa iska leh ka aan doona annaka hadaynayna baa ilaahay yidhi caza wajal kuwa hanuunayana annaka naqaana baa ilaahay nebigiisa uu ku yidhi marka hidaayaddaas ilaahay baa milkiyey cid kale ma hayso oo dee nebi maxamed hadduu milkin lahaa hidaayadda bilaalow xabashiya hidaayadda ma heleene abaa taalib oo qurayshiya buu nebigu hadayn lahaa abulahab oo qurayshiyo nebiga adeerkiya buu nebigu hadayn lahaa hidaayadda haddii ay cid milkinayso een maaragtaane dee nebi ibraahim calayhi salaam aabbihii gaalnimo kuma dhinteene bal hidaayadduu ku deeqi lahaa ee uu siin lahaa marka hidaayadda ilaahay baa haya caza wajalla kuu doonana ilaahay isagaa hanuuniya kuu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa baadiyeeya oo lumiya muuse binu cimraan waa nebi muuse calayhi salaam oo 30 sannadood aqalka fircoon ku barbaaray oo ku korayna ilaahay uu hanuuniyo waxa uu ka dhigay nebi rasuulah oo la yidhi waliba wakallama allaahu muusa takliima waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay caza wajalla hadalkiisa ku maqlay buu ahaa nebi muuse calayhi salaam nebi muuse oo aqalka fircoon ku barbaaray ka hanuuniyey ee risaaladda u doortay inuu nebi rasuula uu noqdona waa allaahu rabbulcaalamiin weeyaan waxaa kaloo hidaayadda aanan nasiib u helin ninkii la odhan jiray saamiriy muuse binu dafar baa isagana la odhan jiray buu yidhi ibnu cabbaas waa ninka reer bani israa'iil ahaaya malakuljibriil suuraddiisii malakiga intuu ku arkay haddana ilaahayna rumayni waayey rasuulkii loo soo dirayna raaci waayeyna kaana hadday ay noqonayso hidaayaddu in qof uu hadeeyo aragtida jibriil uu ku hanuuni lahaa limaada jibriil waa malak ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qaamad iyo quwad iyo taaqad ku abuuro siiyey ninka malagaa arkayna ilaahay hidaayadda kumuu deeqine ilaahay hidaayadda waxa uu ku deeqay ninkii guriga fircoon ku barbaaray ayaa ilaahay hidaayadda ku galladaystay marka hanuunka ilaahay baa bixiya innaka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo nicmeeyey oo hanuun baa ilaahayna siiyey laba xaas oo qur-aanka lagu sheegay daraba allaahu maalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ولا بقي سوء عجيبة في سورة التحريم بيكوتها لأواخر كذا ولا بقي سوء عبر قادة الشله أو للربعين كو عبر قادة تد أو إسلام ماذا يهداية إلهي كو ديقو كسيي أدو آنو ويديسن با إلهي قف مسلم إلهي وكادقه
وأن النعمة إلهي تبارك وتعالى أن نقوم هذنا أن قدرنا والله بحث لبضوا باللبن النبي بكوس نولاين مدوا زوجة نوح عليه السلام منوا زوجة اللوط عليه السلام لبد النبي حاسس كودينا إلهي هداية الباب دي وكحدي قال لما أي كل نولاين يكو قال لما ذا قرسنايا أي هوستا قال لما كو قرسنايين النبي ذن وخائمين وين خيانيين نارتا كواريا وندبا إلهي لكو نارتا كواريي ayaad ma oogatihiin naarta la galaba kuwa ku nidhiba ilaahay yiri halka la yiri taaqiya fir'aun oo garanaysaan oo quraanka lagaga waramay oo 26 juz oo quraanka ilaahay ku taala ayaa nabi Muuse calayhi salaam iyo fir'aun wixii dhaxmar lagu soo celceliyay fir'aun oo kibirkiisa iyo qooqiisa ilaahay quraanka uu noogaga waramay fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la ninka dadka intuu u yeedho fagaaraha soo joojiye ku yiri rabbigii koreeye sareeye waa aniga aqalka ninkaasi uu ku dhex nool yahay gabadhii ku nooleeyna ilaahay azza wa jalla hidaayada ilaahay ku galladaystay oo ilaahay islaamnimadu qalbigeeda ku sharxay waata ku ducaysanaysa eele rabbi ibni li indaka baytan fil jannah ilaahu aniga guri agtaada iiga dhismay ku tir agtaada hatta ma qalat anbiyada agtooda iiga dhismay orana waxay tiri إله وحرب جنة إن أكتاد أقل عنك أديك دستا وكي النبي لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن هذا إلهي ويدي سنيسان ومر بإلهي أدبر يسام النبي عليه الصلاة والسلام جنة فردوس الليلة إلهي ويديستا maxaa yeelay jannooyinka ayada ayaa ugu sarreysa ayadaana ugu dhaxayso waa bartamahay ku toosan tahay carshiga raxmaanka ayaa saqfigeeda ah wabiyaalka jannada maro oo dhan ayada ka bilaamaana ka burqamaan buu nabigu yiri gabadha ilaahay waxay weydiisatay rabbi ibni li indaka baytan fil jannah tarabbat fi bayti fir'aun wa 'ashat fi bayti fir'aun wa ra'at tuqyana fir'aun kibirkii fir'aun bay u soo jeeday arkaysay مجتمع يكون أحبر بارتوا مجتمع نينك هايست أوليه أنيقا يا ربي ما علمت لكم من إله غيري إله أنيقا أنا هينو كلا نوغا هاي ونيوغا هاي مجرتي أنيقا إلهي عبود الشخص الصدالة قابد قوريقا نينكا ودقينها كبر بارتي إلهي عز وجل قلبي إذا وحو كسر حي إلهي جريتاكي سونو هاي حق نبي موسى عليه السلام رسالة دي حق إني تهيب قلبي قد لغو شرحي وعين كدو عيسان ساء إلى ذهي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلهو أنك وحنك ويدي سنيا أكساد قولي إلهو إيقدس ونجني من فرعون وعمله فرعون إلهو إيقفوقي عمل كي سنة إلهو إيقدره قال كا إلهو أنك إيقدره قال هذا أعماش ودن إلهو إيقدره قال كو تأصيرين وكو سامين مجتمع ويس السامعيان هذا المجتمع مسلم آل هايستو وحكى لها كوبا دلنا وقو إسلام ماذا كو خير بدن مجتمع مسلم كي أشهادنا يا ولو دين تودو بهالنقطة دين ضعيفة هالنقطة لكن قال إن تكون نحن ولاته مسلم كود كو أجن ولاته هبا كو أجاجوتي دي هبا كو أجرفادي دي مسلم كأشهادنا يا مرنا قال لما أنا لو قبغين إنه قالوا بو إن تكون أجن ولاته أياكو خير بدن لذلك قبضها وحي لا ذهي فرعون كليه يقفوقه ملا وحي لا ذهي عمل كيسن إلهه يقفوقه ونجني من القوم الظالمين قوم كاسنا والظالمين إلهه إياك أنا يقدر بيتدي إلهي تبارك وتعالى وقادر على كل شيء وصدو دون يالا وإلهي أسماء إلهي وحاكم الهادي هنونية وإلهي عز وجل إله عز وجل موسى السامري إلهي هداية ومقدرين وانك جبريل أركي موسى بن عمران وقصر فرعون كورينا إلهي عز وجل أوهنون يوم مؤمن نبي الرسول وكليم الله بالله لبدي هوين النبي نوح النبي لوط أي كلاقبين اللي بين نبي هوسود وكبر بارتينا الباب كهداية الله مفرين تي قصر فرعون كبر بارتينا آسية بنت مزاحم ولبا وحى نبي قال له بشاريي إلى النقونيس وحاسس النبي محمد جنة الله قدس دونك من النقونيس إلهي هداية ديسا بحية
إنك إلهي وإنه نعمي تتكن خاصة أفكار اللغة الصومالية يكوها الله فهم يكوها الله سجار إلهي وحمدنا مسلمين بإلهي نقد يا بياشين مسلم ولا لهين مسلم أو ياشين مسلم أجدادين مسلم عدة كسوجة دوا مسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتها خاصك إنك إنه خاصك والله يكون من هلين صحابة رسولك السيرة ذا مركي الله نقضي السقي هدو مسلم نقضو أبيه قال لماذا كسقنا خالد بن سعيد باكمدا صحابي قال له نجري الله رالك النقضي خالد بن سعيد وحو كما نامي أسبابته وكو إسلامي وحا كمدا هيد isaga oo wuxuu ku manaamay aabihii oo naar ku dhex jira oo inankiisana soo qaabanayo soo jiidaya oo naarta ku soo tuuraya oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam halka guntiga uu ka hayo dadna markaasaan hurdadii ka kacay buu yiri argagax Abu Bakr as-Siddiq baan u sheegon ku yiri Abu Bakr oo Muhammad adiga rumeeyo raace bal manaamkan aan arkay ii cabir baan ku yiri buu marka ii cabir riyada wanaagsanad ku riyoota dadka khayrka aad ku tuhmaysaa loo sheegaa وواحد كوجو عبران لكن واحد اللي هذا حلم كهواويجا إن حدنت بدل الله مشيجو والسنة دي نبينا عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة قاسوا أرضوه وشيجي أبو بكر الصديق بقول منام كأذارك وحق أبها النار بكون عياء وقال لماذا وكجرو كفر يا شركة جابوا كل من يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تنو إنه لي مدوا الدين النقوله نارتها كبت بعداني أنا يصور راعب ونبي قلنا ليه وأنا آخذهم بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي أنا قلنا قنت قاسان إنها يا هلكا دحركا أيان إنها يا أبو نبي قول عليه الصلاة والسلام سان نارته وقول عمن إنها حجنا يا إنه كنا وادسك كي قلنا سانو نارته تكوه وبني سامو رسول كويدي لأن الرياضي مركو وش يقول والله منام كان لقوا تسوى حق أبها النار بكون بين دونا نار بونا كده دونا قال لي مكود منا يا هذا كان النبي محمد وكو جرمنا ياي هم كو جاي كهلا يسقط الإسلام والنبي محمد كده يقول الرع وهجا وسوق حي لأن مركب النبي أوكينا عليه الصلاة والسلام خالد بن سعيد مركب النبي هرتي سوق إسلامي أبيه بمغلى مركب سعيد بن العاص بمغلى إن كيسي ودين محمد وقلي ومكة للجوجا ذاتك مسلمين توافر كترس ويان قفلي قفكي مسلمي إسلام لماذا إلهي كقل دايستو بركابة ولا عذاب يا ولا دبيا ولا له بودرو لسوق قبته ولا قبتي أفرت الدين بالله حدي بيه بالله دبي بات كي بالله ديدي وعلقوا قصبا يا إنه قالوا بور الدوبو ولكن يسقوا حولي مي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مركا وكرواية وأركنكني إنه دين الإسلام كأونا كنقنين أيو يدي حركها كسيدايا مقالة مكا هايسكالو وجيجي سهيقا قريو ميلان جوغا يونس سو جوكسن بعد نسيني مين بينا ورابين مينو هرادي أونيا قاجها ودنتي مركي سدا آبيه وكويري أيو يدي آبا هداد أدقو قوت كاد هايستي آدقا من عستي أنك إلهي با يقودين يبو كير الله مسلم جديدة وشلي إسلامي أيا مركب قلبي سيقينتو أي كل بعيسى أو كله حنقا جودو أبا هي هنوايو ولا لا هي هنوايو قرابة إذا هنوايو وحي دباتي سوغا ده هي سوغا دو لكن مرة دار مسلم أنا هي إسلام لماذا وانكو قنع سنة هي دين الإسلام كيقول فلانو إدقي دون تويان ها دين الإسلام كيقول فلاتو أيها المسلم ها إيجن هنقريقا nin muslim oo dadkeena ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo wadannada reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkoo dhan u qaado markaasaan salaamnayo salaamu calaykum ma sha Allah bal warano waxa igu maqal inaad dhoofaysid markaasuu haa waan dhoofayaa waxa geed tagay dhulkaas maxaa jira wuxuu qaaradan Afrika la yiraahdo la iskuma hadlayn karo buuri nabadgelyo ma taalo tacliin ma taalo caafimaad ma yaallo shaqo ma taalo system ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoon baa dadka ku jooga marka wadannada horumaray ee nabadgelyadu ay taalo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooda la raadsanayaa buu yiri u fiirso Khalid ibn Sa'id eeg shalu islaamay abihi baa ku leh baadiye bi ku silmaayo markaas uu jawaab u leeyahay
عرب كما واحد جوابه يو عقيدة أيا جوابيس إيمانك قلبي يسكجر جوابه يو كله أبا هذا أدو بعد كي بيها أدي من عستي أنا إلهي بيقودنا ويسين يبو كويدي خالد بن سعيد ويمد النبي ويمد عليه الصلاة والسلام وأمركم النبي جوجا دارتي أرقم ابن الأرقم هل كان النبي حتى مساجد كحرم كلهم أقولين هل كان النبي صحابة ديسا قرآن كمكة مكة كسودجي آيات كقرآن مكة إيمانيات كآخرة كورمايا هي قصص الأنبياء والأمم السابقة أيو مركا النبي قدوس ذكو أخريا إيمانك هو أيا مركا دسمايا يقين تودي عقيدة دود أيا الله دسيا وتربية دينا يا نبي عليه الصلاة والسلام لأن مالها كمذا وحو مغلي خالد أباها والسكرات لأن مركا أبو صوص علي أبيه والسكرات أبو دولي مدي وذا قد علي مركا أبو دول جوكسد وذا قد صدق ما خالد با ها أبا وخالد ويان دين تيم محمد ما كسر نقطي مركا سويري مي أبا مي كما صار نقون كما نصار نقون عيو مدو يجا أقرب بكير مدو يجا أقرب هدي حنون كأنك كعبود ما أنت إله محمد ما كان لقوا عبود ما يبكيري قال ابن سعيد ومغلى يا هذا الكعب قال لماذا أبيه وكم نامين ناركو دعايو قبل هذا أنتو جيسي أيوري سماذا أنتو يقول قعما عركو تاقيبوا إله آبهي موقف كيسي ولي مبدلين هل كاسو ما تاقنو إله حنونك هكاكعين إله كوقاد بويلي سقنا هو هبار حنونك إنو بكاكعين إله كوقاد إلهي وكوقاد حنونك قال لماذا سي جهنم ولا تقى والعياذ بالله وحنكو ذا صحابة رسولك رضي الله عنهم إسلام لماذا حدو صحابك مسلم يحي إساقنا ما ركتان أبيه هو يدي ددكيسو قال لماذا كسقنا يعني أبا هريرة رضي الله عنه مركو إسلامي هو يدي أودأه قال لماذا ولي باقي أيكو سيتاحي مركاسو أبا هريرة نبي قوي ماذا عليه الصلاة والسلام مركاسو نبي علمك كبرتا هذا هو يدي بوتقا ووصو خدمة مر اللي مركو تجنا دعوته بندقاء ورسالته بندقاء مركاب إسكت دايو ترى إلى داف دين هذا أو نمر بدين هذا مال ما كمدا أبا هريرة الله رالك النقدة إسقول المدو أي كيا عيسى النبي أصوغ عليه الصلاة والسلام مركاب النبي يقول يا أبا هريرة وما حي أوهنت ما أنت محاك إلى الله إسائيشك وعلي يا رسول الله هو يدي ومشركت وقال لمدي بولي الشرك جيبه كسوغ انتهي مركز سنة وانو بندقى الرسالة دي التوحيد وانو بندقى ويديدي جرتي لكن ما أنت هذا لانو أتكي سنوا يبي يقول تريبو يدي وهذا الكوا محي هذا الكوا لبا أدقى كاتر أدقى كل جدي هذا الحن أو أدقى أنا كو قلمين أي نبي الله أدقى كو تلمامتي نبي باري آياتهاي أو بركي سنة ادعيه يدي إلهي ليسو هديه مرقاب النبي عليه الصلاة والسلام أيو قعمها عرك وتاقو وحويري اللهم اهدي أم أبي هريرة أبا هريرة هو يدي إله صوهدي أبا هريرة هو يدي إله صوهدي لأن أبا هريرة رضي الله عنه حويري أنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بشاريسا إن لئي أقبلي أي أن أراد السقادة يقول وسيسيد داي لأن مركان شنقر دايدي مركان مغشي أي هذا شو وحيت لها يسوع قال لي ندي بده جوب وهنستاجن وحان مغلى مركب بيها يكون ميرنا يسوع شنقدو دي صوتك مركب سان ندي وميرنا سان ما شاء الله مركبه تري كان مرضي بنودي بي سوقل شهادتين كي قوابي كتر وان اسلام يا ولا في رسول والله قني isagoo ooyay buu nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam oohintan imika waa farxad maxaa dhacay Abu Hurayra ya rasuulallah ducadaadi ilaahay waa aqbalayo hooyaday way soo islaamtay buu yiri sidaas saxaabadu ahaayeen laakiin innaka maanta ilaahay waa inoo nicmeeyay adaan abtirsanno 20ka oday 30ka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaal laga heli maayo جد كجد واحد دت كان كسوجي وضع مسلمين وضع شهادنيه وقاركود إنك نجد توحيد في عنايان ونجد دين في عنايان ونجد دقن في عنايان ونجد النماء في عنايان ودعاء ذا إلهي أقبله تبارك وتعالى وواحد لقى بين كسوجي دت حلال مرضى ودقن ونكسله
nin culimada muslimiinta kamida oo inuu yahay baan u maleynayaa Masri ayaa tawaasul al-ijtimaacigan ban ka daawaday maalin lajnatu tahkiim wadanada Scandinavia wadan kamida ayuu musaabaqada al-Qur'aan buu markaa ka qaadayay waxa dhacday markaa wuxuu yiri waxaan idhi Sweden ayaa ka socda yar Soomaaliya soo kacay buu yiri waan yaab Australia ayaa ka socda oo Qur'aanka musaabaqada uga qayb galaya waa Soomaali buu yiri America ayaa ka socda waa Soomaali London ayaa ka socda UK waa Soomaali wuxuu yiri ma garan kara buu yiri xidhiid baa jiray buu yiri xidhiid waa hadalkan ku ta'athuray aad ay maartaan ay taabtay wuxuu yiri maaha innika buu yiri laga yaaba aabayaashiin dadkaad ka soo jeedaan laga yaaba inay jirto sir iyo ka Ilaahay u dhaxaysay waa waxa Ilaahay Quraanka inoogu ilaalsanayo weeyaan bifadlillaahi azza wa jalla wa bikaramihi meel badan oo adduunka aan maray oo safar dacwadeed u maray masaajid kuma tukado ilaa imaamka salaada tujinaya waa Soomaali qaariga salaada tujinaya waa Soomaali marka nicmada Ilaahay nagu galadeystay nicmada al-hidaayah nicmada al-iimaan wal islaam nicmadaas marka han qadarino oo Ilaahay han ugu mahadino oo han ku shukrino oo nicmada dhulka ha dhigin ha dayicin meel kor u qaad waxa ugu qaalisan Ilaahay adduunka dusheeda uu dadka u siiyo waa hidaayadii baan haysanaa marka nicmada Ilaahayna siiyo waxaan u baahanahay inaan ilaalsano oo ku amal fallo oo ubadkeena barno oo inagu diinteena barano oo inagu diinteena ka shaqeyno waa saddexda diintu ay ku ilaalsanto waa saddexdaas al-ilmu wad-da'watu wal-amal al-ilmu wal-amalu wad-da'watu ilayhima ilmiga ina diintaada barata waa fariidatun ala kulli muslimin wa muslima ina diinta aad taqaanana aad ku amal fasha waa qiyaamaha la isweydiin doonaa والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك أي دينتا إلهي كسيي مالك قيامها أما حجوك كفر دونا أما أذيك قرآنك حجك نغني دونا الصوم والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه ويقول الصوم ويقول الصيام منعته الطعام في النهار فشفعني فيه حديث معنيه سوها النبي وكيلها لبا قيامها وشفاعات قاضيا لبو صومكنا وشفاعات قاضا قفك الصوم جري ووحو كورنيا يا ربي أدونك دوشيدي مالنكي أيا شهودي سكربه إرجانه إله إرجدا إي أقبل بورنيا إرجان وهاي قرآنكنا وحا وليه هاي هبينكي بوكي جرو خرين جري إله شفاعات إرجان وهاي إرجدا إي أقبل بيسقون ليها قرآنكي marka hadda diintan ku amal fasho maalka qiyaamaha diinta iyada ku shafaacad qaadi wad-da'watu ilayhima iyo in dadka muslimiintana barashada diinta loogu yeedho salaada loogu yeedho gabdhaha u yeedhaan asturka loogu yeedho dhaqanka wanaagsan loogu yeedho haddaad adigu daaci noqonood ummadda khayrka ugu yeedhin adiga lagu yeedhin ad-da'watu ila Allah فريضة شرعية وضرورة بشرية وأنا من أسباب الهداية وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم نبي محمد عليه الصلاة والسلام بإلهي كلها دتك حق ربك أقوير حتى دتك حق ربك أقوير يسد طريقي مستقيم كهنون كيف الدول صارت هاي النبي قال لقويري دعوته مركز مدى خير كأدقارسين يسد ومن أسباب الهداية وأسباب تأد كجرن كريسد نعمة إلهي وكسيه قدر كيجا. مركا نعمة إلهي نسيه إسلام ماذا هنكون شغرينه. إلهينا هنقوم مهنغنو. مالك لأنه هو تاجن. عز الدنيا والآخرة هذا دون تدين هذا هناك. ابن عباس الله رأى لك أنه قد يسقي أبيبه وحيري. عبادة إيه دين تاني خير كإلهي نسيه. هذا وقف كود دالو وإلهي حرير في عنه الله يشو. وعبادتي صلاتي سلقا أقبله شن فوائد بعدونك دوشيد إلهي كسيا نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق حداد
cibaadadaada taacadaada diintan ilaahay ku siiye dhaqan ay kaa noqotood ku dhaqanto shantaa nicmadood baa adduunka ilaahay kugu dul siinaya shantaa nicmadood nuurun fi lqalbi qalbiga ilaahay nuur kuu gelinaya nuur wa diyaa'un fi lwajhi wejigaagana iftiin baa ka baxaya mar walba qof bashaashoo farxad badan baad noqonaysaa oo bilaa istarees ayaad noqonaysaa wa quwatan fi lbadani jidhkaagana ilaahay quwadiyo xoog buu gelinayaa wasicatan fi risqi arsaaqadaadana ilaahay uu ku waasicinayaa wa maxabbatan fi quluubi alkhalqi khalqigana jacaylaa ilaahay qalbigooda kuu gelinayaa shantaa nicmadood laguma helo lacag laguma helo aqoontan adduunyada maadigood lagu talax tago laguma helo qabyaalad laguma helo mansab ibnu cabbaas mufasiru alqur'aan xabru haadihi alumma ayaa kuu sheegaya oo kule haddii ilaahay adiga xidhiidhka inaga dhexeeya uu hagaagaa shantaa nicmadood baa adduunka ilaahay kugu siinayaa nuurun fi lqalbi qalbigaaga waa nuur nuurka qalbigu waa maxay waa indhaha qalbiga ayaa kuu furmaaya waa indhaha lagu arkaa khaaliqa iyo makhluuqa farqi maxaa u dhaxeeya adduunyadan gaaban iyo aakhirada waasica badan leh farqi maxaa u dhaxeeya daacadda ilaahay iyo macsiyadda farqi maxaa u dhaxeeya ashyaada iyo materiyeelka iyo salaada iyo camalka wanaagsan different farqi maxaa u dhaxeeya islaamnimada iyo qabyaaladda farqi maxaa u dhaxeeya waa nuurka lagu arkaa waa nuur alqalbi weeyaan wa diyaa'un fi lwajhi wejigaagana iftiin baa ka baxaya xasan albasri allah u naxariistee caalim min culamaa'i salafi haadihi alumma oo taabiciintii ayuu ka mid ahaa wejigiisu asmaru lown midabkeennaasoo kale ayuu lahaa wejigiisa iftiin baa ka bixi jiray su'aal baa la weydiiyoo lagu yidhi wejigaaga iftiin baa ka baxa maxaad samaysaa noo sheeg wuxuu yidhi saacadaha dadku ay hurdaan ayaan ilaahay la munaajoodaa buu yidhi anigu saacadahee waqta asaxar wabilasxaari hum yastakfiruuna baa ilaahay yidhi mu'miniinta calaamaadka lagu ammaanay waxaa ka mid ah wakhtiga suxuurta waa wakhtiga khafladdu ay badan tahay waa wakhtiga shayddaanku qofka uu dushiisa ku yidhaahdo habeen dheer baa dushaada ahaadee iska jiif ayaan kacaa buu yidhi saacadaha baan kacaa dabeedna ilaahay baan la munaajoodaa markaasaa lagu yidhi haddana majliskaagan majaalista kale waa ka duwan yahay oo muxuu kaga duwan yahaa lagu yidhi yuu yidhi waxaan arkaynaa majliskaagan madaxda kula fadhiisanaysa awlaaddii madaxdu ay dhaleen baa ku dhegaysanaysa maalqabeennadii baa ku dhegaysanaya sidee markaa ku dhacdaa lagu yidhi inay dadka shurafadu ay hadalkaaga iyo khayrkaaga jeclaadaan waa ninii sheegayaa buu yidhi taana jawaab baan niga siinayaa waxay haysteen baan u daayey waxaan haystana way u bahdeen buu ku yidhi waxay haystaan maxay haystaan madaxdu adduunyadii bay haystaan maalqabeennadu warqadee lacag ay haystaan madaxdu mansab bay haystaan maalqabeennadu lacag bay haystaan farahaan uga qaaday waan u daayey anu xagga ilaahay baan u jeestay xagga diintaan u jeestay cilmiga ilaahay i baray ayaan ummadda intoon meel u fadhiistay shaqadaydu waxa weeyaan dadka iyo ilaahay baan isku xidhaa maadaamaan ilaahay ku kalsoonahay waxaan haystay u baahdeen markaa iyo kii waayo ninka muslimka nicmadda uu haysto waa nicmo dadkao dhan u baahan yihiin bal dad muslimiina maanta waxaa ka dhaadhacsan ma taqaanaan gaalada lagama maarmi karo horumarkoogaan u baahannahay aqoontoodaan u baahannahay sistamkoogaan u baahannahay la'aantood lama noolan karo waxaanad ogayn waa run aqoon hadday leeyihiin aqoontooda ka soo baro laguma diidano sistem fiican haddaad ku aragto iyagoo ku dhaqmaya wixii diintaada islaamka aan waxba u dhibaynin ka soo qaado waayo nebigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wassalaam nebigeennaa saxaabada ku yidhi war umuurtiinna adduunyada ininka iga aqoon badan buu nebigu ku yidhi laakiin waxaanad ogayn adigu oo kaa maqan gaaladu sababtaaday ku nool yihiine adigu iyaga sababtooda kuma noolid muslimka sababtiisay adduunyadu ku socotaa muslimka shahaadanaya waa ruuxdii caalamka bini aadanka ruuxdiisu hadday ka baxdo jidhkani waa maydna waa la iska aasaa ruuxda caalamka ku socdo ma taqaanaa waa alislaam ina addiina cinda allahi alislaam laa taquuma asaacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah fii saxiixi muslim waxa uu nebigu ku sheegay dabayl inay ka iman doonto min qibali shaab
dabayl qabow leedna markaasaa qof kasta oo mu'mina ama misqaala darra waxay ishu aragto waxa ugu yar oo khayra ama iimaan qofka qalbigiisa uu ku jira buu nebigu yidhi dabayshaasi intay gasho sanka iyo afka intay ka gasho ayuu u dhimanayaa buu nebigu yidhi xataa midkiin hadduu buur caloosheeda uu ka geli lahaa dabayshaa intay ka daba gasho ayay ruuxda ka soo qaban buu nebigu yidhi qof mu'mina adduunka ku hadhi maayo dabayshaasaa mu'miniinta adduunyada ka wada rafacaysa falaa yabqaa fi lardi ilaa sharaaru lkhalqi baa nebigu yidhi dadka adduunyada ugu shar badan ayaa caalamka ku soo hadhi doona kuwaasoo wanaaggana aan isfaraynin xumahana aan iska reebaynin arsaaqadana dhinac walba laga dhigay ibliis baa isku soo sawiri doona oo odhan doona aniga maad i ajiibaysaan oo maxaadna amraysaa hanku ajiibna bay ku odhanayaan waxa uu odhan doonaa asnaamta dib u caabuda kuwaasoo asnaamta caabudaya buu nebigu yidhi oo ilaahay khayrkii caabudaya oo munkarkuna meel walba uu yaallo ayaa saacadda qiyaamada ku dhici doontaa buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasallim saa daraaddeed walaalayaal muslim ogow caalamkan innaku inagu taagan yahay dad kale kuma taagno adigaa ruuxdii caalamka maxaa markaa lagaa rabaa inaad adigu islaamnimadaada muujisaa lagaa rabaa inay islaamnimadu kaa noqon sheegasho ay kaa noqoto maaragtaane ku dhaqan waayo dhaqankaagaa ummaddu arkaysaa waddankan aad ku nooshihiin inninku khaasatan dadkiina dhulkan jooga iyo dadka qurbaha jooga ee wacdigaa dhegaysanayaba salaadaad tukanaysa dadka gaaladu ma arkaan soonka aad soomaysana ma arkaan xashkaad gudanaysana ma arkaan oo maka intaanan la gelin waxaaba ku qoran maaragtaane mamnuuc qof aan muslim ahayn maba gali karaba zakadaad dhiibaysana gaaladu nasiibba kuma leh 8 sinfi ee zakada la siinayo waa dadka muslimiinta loogu talagalay marka haddii salaadaadii gaaladu aynan arkayn soonkaagiina ay arkaynin xashkaagiina aynan arkaynin dadka gaaladu markaa maxay arkayaan dhaqankaaga markaa arkayaan seed u dhaqmaysaa islaamnimada ilaahay ku siiyey ee uu kugu galladaystay ma kaa muuqataa adiga mise magacun bay kaa tahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay 4,000 ayaa lagu qiyaasaa marka dadka magaalada maka ku noolaa quraysh lugihii nebigeenna hoos joogsadeen markaa buu nebigu ku yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad maanta iga malaynaysaa inaan igu samayn buu nebigu yidhi quraysh waxay nebiga dhib u geysteen la og yahayna waa qoran tahay bilaal bay dhibeen cumar bay dhibeen abubakar bay dhibeen oo nebi maxamed bay dhibeen ma dheerayn 6 sano ka hor 8 sano ka hor bay ahayd qiyaastii maxaad u malaynaysaan maanta inaan igu samayn maxaad iga filanaysaan hal mar keliya intay sidaa u eegeen bay ku yidhaahdeen waxaan kaa malaynaynaa khayr waxaan u aragnaa inaad tahay walaalkaygii wanaagsanaa uu noo dhalay markaa buu nebigu ku yidhi aniguna maanta waxaan istaagayaa mowqif cajiiba mowqifkee halkii nebi yuusuf walaalihii oo qaxootiya markay u yimaadeen isagoo wasiirkii maaliyadda ee masrax ayuu ku yidhi laa tathriiba calaykum alyawma yakfiru allaahu lakum wa huwa arxamu arraaximiin maanta wax laynaga aargoosanayaa ma jirto ilaahay dembigiinna ha dhaafo kuwa naxariista ka ugu naxariis badan waa ilaahay sidii nebi yuusuf walaalihii uula dhaqmay ayaan aniguna maanta iniila dhaqmee aqalladiinna gala buu nebigu yidhi aamin baatin wala nabadgeliya buu rasuulku ku yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi may noqon aqallada kumay noqon reer intay u baxeen ayay nebiga saf u soo galeen iyagoo aa shahaadanaya yaa allah waa maalinta uu khaalid yidhi maanta waa maalintii hilibka waa maalintii quraysh la googoynayey ansaar saasay yidhahdeen ansaar markaa buu nebigu yidhi may cabbaas u sheega ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la laynaya maaha ku dhammaanta waa maalintii naxariista wamaa arsalna
naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa lainoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya sidee diintani ay nolosheenna u timaadaa bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmayaa inaan dadaalkaas ziyaadinno ducada badinno diintu ay naga noqoto maaragtaane ku dhaqan guryaheenna ubadkeenna gabdhaheenna diinta ku ababinno insha allah dhahada hada wabillahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina muxamed